magaalada muqdisho waxaa ka socda maalmahan howlgal hubka dhigis ah kaas oo meelo badan isku dhacyo ka hor keenay ciidamada dawladda Soomaaliya oo dhimasho iyo dhaawac soobay caawa meel ka mid magaalada muqdisho hubka dhigis socotay ayaa la sheegay in ay ciidamo isaga hor yimaadeen hal qof oo dumar ayaa ku dhaawacmay xal sidoo kale waa ay dhacday shalay degmada wadajir ayay ka dhacday wararkaas ayaa muddooyinkan maalmahan iyo habeenadii la soo dhaafay magaalada ku soo laabtay doodan soo socota waxaa ka qayb galaya Dr. Cabduqaadir Geef iyo waliba Maxamed Xaaji Cali waa aqoon-yahano magaalada muqdisho ku nool sidoo kale waa siyaasiyiin ka faalooda arrimaha Soomaaliya waxayna u arkaan in hubka dhigista ka socota magaalada muqdisho ay wax wanaagsan tahay mid ka mid ah wuxuu u arkaa in tani ay tahay dhibaato ku soo food leh dadka hadda is ilaaliya ee hubka laga dhigayo wal seen aad u mahadsan tahay anigu fikirkaygan oo galkaani waxaan u arkaa inuu aad iyo aad u wanaagsan yahay markii loo fiiriyo ka qayb qaadashada uu ka qayb qaadanayo soo celinta amniga muqdisho ma garan waan gartay wadankani waxaan ognahay inuu 27 sano ku soo jiray dawlad la'aan iyo dagaalo sokeeye iyo qabiil iyo hubaruursi marka in wixii hubkii dadkii dib looga qaado oo iyadoo la nidaaminayo oo xeryahoodii lagu celinayo hubkiina dadkii gacantooda dib loogu celin doono hab sharci ah anigu taasi waxaan qabaa inay qayb ka qaadanayso soo celinta iyo hanaanka dowladnimada iyo kala dambeynta caasimada iyo dhammaan dalka si guud waa maasanta Dr. Cabduqaadir Hasiinaya sidee u aragtaa adiga howlgalkan ka soconaya muqdisho bismillah rahmaan rahiim idaacada kulmiye aad ayaan ugu faraxsanahay oo maanta barnaamijkan aan ugu casuuseen oo ah maaragtay barnaamij bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ay aad u sugeysay barnaamijkan waxaan oran karaa aniga waxaan u arkaa shaqo loo haayo xarakada al-shabaab shaqo loo haayo maaragtay dad qof walba oo fursad ku raadinayay shaqaalaha dawladda ama hay'adaha dawladda kala duwan dhammaantood marka waxaan leenahay waa hawl loo fulinayo oo loo haayo al-shabaab sababtoo ah waxaa weeye maaragtay hawshan la haayo aan u dareemaynaa yani shaqaalaha dawladda amsi ku tahay ciidan ha ahaado ama shaqaalaha rayid ha ahaadaan kuwaasay ku socotaa howlgalkan howlgal ayaga lagu ugaarsanayo noqotay sababtoo ah hubkan lagama qaadin al-shabaab lagama aruurin lagama raadin xaggooda waxaa laga raadinayaa maanta gacmaha ciidanka dawladda hubkii ku jiraa la raadinayaa waxaa la raadinayaa shaqaalaha rayidka dawladda gacmahooda hubkii ku jiraa la raadinayaa markii laga faramariyo al-shabaabna hubka laga soo qaadin waxay u eg tahay in maaragtay weerar lagu yahay dawladda marka waxa waaye waxaa meeshaas ka dhalan karta su-aal adag oo ah shaqaalaha dawladda haddii ay rabto marka dawladda inay hubka ka saarto al-shabaabna ay rabaan inay dilaan waa amnigooda sugaayo waa maasanta Ustaad Maxamed ma ku muuqataa walaacan ay qabaan dadka la ra'yiga ah Dr. Cabduqaadir in al-shabaab aanan hubkii laga dhigin oo dawladdii shaqaalaheedii iyo dadka muuqday amnigooda ku xaqiiqsanaya hubkay wataan laga qaadayo walaal Xuseen aad baa u mahadsantahay walaalkay dooda ula jira isaguna aad buu u mahadsan yahay anigu taa ma qabo taa mid ka duwan ayaan qabaa waxaan qabaa howlgalkaani hubka lagu aruurinayo waxa weeye howlgal guud waayay si guud magaalada loogu aruurinayo shakhsina target laguma ha ahaado shaqaale dawlad ha ahaado ciidan ha ahaado shabaab intaba anigu marka waxaan qabaa haddii hubka la aruuriyo shabaabna laga qaado hadduu jidka soo galay magaalada soo galo kii dawladdii ciidanka ahana oo hubkii si sharci darra magaalada gudaheeda ugu socdana laga qaado kii shaqaale rayid ahaayo oo dawladda oo ah bustoolada ama qori watana laga qaado waxaan u arkaa in dhammaan ammaan la wada helaayo oo aan loo baahan doonin in si guud qof kasta uu dabarkiisa hub ku sito oo iska ilaaliyo qofka kale anigu fikirkaas dhankaas ayaan ka qabaa walaalkii Maxamed hubka cidda laga qaadayo inaad xaqiiqataa sax ah oo aad iska hubiso hubka waxaa laga qaadayaa ciidanka dawladda oo dawladda u diiwaan gashanaa oo maaragtay nabad sugid lahaa oo military lahaa oo boolis lahaa waxaan rabaa walaalkay waa maadsan tahay waxaan rabaa hubku askarigu haddii uu si sharci darra kagala soo baxo xeeradiisii ama goobihii loogu talagalay miyaysan ku habboonayn in laga qaado iga jawaabtaa ma kuu muuqataa marka askariga xeradiisa iyo inta ka dhaxeyso gurigiisa markuu fasax soo helo inuu ku tegi karo nabad
يعني أنا قلنا محاديدية عقل السليم كان فكرنا محاديدية إن أسكر كان هدي لون نبضيه أو شباب كان لا يقعد أو لا يقعد إنه حريدي كنا نقول صوب الجروب مثل ما كنت قاعدين لا محاديدية مايا الشباب مجال الشوف كوي كوي تنولي شكرا جدا والله وايه اوكي marka adigu waxaad ku talinaysaa aan kala sugno shacabku shabaab iyo dawladda ugu baahan tahay ka talinaysaa maya maanta waxa hubka loo wato oo laga qaadayo hubka waa dadka xaq u lahaa waa askarigi dawladda ee maaragtay sharciga ahaa ee maaragtay yani magaalada dhaxmaray ee gurigiisa uu hoyanay markii uu ka soo fasax qaato gurigii yani xaruntiisa ay taliskiisa ka fasaxaan gurigiisa markuu inta uu soo socdana waa laga qaadaya asagoo shaqada ku baxayna waa laga qaadaya waxa uu kulliya oo hubka laga qaadayo shabaab waxaan rabaa walaalkay aan kala sugno محمد ما وحى صح تليه أمني قبل كبنادي يعني تليه بول قبل كبنادي ما أنا يقول كلا جزء هذا الله ويرره والله يعني لجوه يرره أنا ما هينو ميل حدين الله وقع أنا ما هينو ميل حدين الله وقع أنا ما هينو ويا وما سنتي لبدي النبع وقت عن السن دكتور عبد القادر يا أستاذ محمد نفر أفراد دجال كدعي أو ما ركتي خليها عيد كلجوه يرره أو عيد أفكر فيه أو كذا أو بلا ترجع اللي تجري مثلا وايه walaalkay adoo macsan waa ka dhigtay adoo macsan waxaan rabaa inaad ii sheegto waxaan rabaa inaad dhigeysan walaalkay waxaan rabaa inaad ii sheegto hadaanan hadda hubka la qaadin oo wadanka kala dambeyd iyo nidaam aan la soo celinin goormay sugaynaa in dadkan ciidamadan ay xerooyinkooda hubkii meesha loogu talagalay inay la tagaan waa sax waa mahadsantii labadiinaba ustaad cabdiqaadir دكتور عبد القادر يا أستاذ محمد وحكى لسان oo su'aalo badan ka dhalanay waxaan rabaa inaan ogaado aruurin oo dadka shacabka bilowday wadankan dibulshidin ma loo sameeyay kama laga qaado gacmaha aruurinaya kuwa lagu kalsoonaan kara ma yihiin su'aalaha taagan waa intaas maxamed ka jawaab caaw يعني حلو شيء شعبك بيجتنا وما تصدق أنه واحد أقنع إذا ماذا نقول كذا إذا ما أورجنايز أو هبيتن أو تريال أو سقف أو بيكسر طحان يميل وجهه أنا وسيد الرجنا وحوي وحنان الدولة دكانته فهي سمرح الدولة يأكتها annagu shacabkiina waxaan nagala rabaa inaan dawladii kula shaqeyno wixii tallaabadii wanaag oo ay qaadayso inaan kula shaqeyno waxaad ogtahay walaalkay in hadda wadamada dibadda aanan la arkaynin qofkiisa askarisiisa hub oo ka soo baxay goob shaqo goob kale u socdo taa waxay horseedaysaa haddii askarigii xeradiisa ka soo baxo oo xeradii ilaa gurigiisa oo la tago waxay keenaysaa laba qatar way ka imaanaysaa qatarta koowaad waxay tahay in askarigii dariiqa oo soo maray waya labadiinaba waxaan rabaa inaan isku soo laabano wax yar idin weydiin lahaa ustaad cabdiqaadir rabaa inaan su'aal weydiiyo askariga meesha oo maray faa'iido leeyahay rabaa inaan u sheego ninka ustaad cabdiqaadir waa u soo laabanaynaa taa waa muhiim waa point muhiim oo soo laabanaynaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo magaaladan waqti badan baa hub lagu dhaxwatay dadka wax dilana waxa la yiraahdaa al-shabaab oo kaliya maahay way noocyo badan yihiin marka haddii qofkii hub wata laga qaadayo al-shabaab ha noqoyo ama asgari si sharci darra u socdo ha noqoyo ama koox kale ha noqday maxaa dhib ah oo jira dawladdiina ay ciidan magaaladii u sameynayso dadka amnigooda la xaqiijinayo xuseen waxa weeye horta waa hadalka maaragtay sida loo leeyahay waa xaq laakiin sida la sameynayo waa baatil ma fahan magaalada muqdisho horta hore keliya ma ahan horta dawladda kumana koobna hubkan yani dadka magaalada iyo guud ahaan soomaalida qaali u qaatayna jirtiga duruufa ku qastay dhibaatada wuxuu dhex maray qabaa'il uu dhex maray deegaan uu dhex maray gobol uu dhex maray maamul uu dhex maray dibulshidin horta caama lama sameyn ma fahan nambarka kaloo xiigana waxay tahay caawa magaalada muqdisho askariga dhex socda ee qoriga wato ee dawladda u diiwaansan ee deriskaaga ah adigoo shaqaalaha rayidka dawladda ka tirsan waa dugsanaysaa waana dugaashanaysaa shabaabkana wuu kaaga baqaya askariga isdhaafdaafaya ee magaalada marayo magaaladu wuxuu yahay amni ma fahan magaaladaas amniga uu yahay waa wax cad oo la xaqiijin karo oo maanta ay ku leeyihiin shaqaalaha dawladda yihiin
laga soo bilaabo kaaraan lagu tago madiino lagu tago gubta iisaani leeyihiin ku degan yihiin waxay ku degan yihiin askariga dariskooda ay ku degan yihiin يعني شغالها الدولة اللي تجي المجالات الكمرة وذكرت الدولة يعني حافظها تجي درس كلا هذه كمل كتسوه هذه هذا الناس يعني شغال أذكر الدولة ده ودرس كلا وحقوق أتقل تجا وكل جي هنا حافظ تجينا لكن هذه أذكر يتعبوني لقد جسوه زي مثلا وايه وايه وما صنت حركة وراكي عبد القادر وراكي محانو جيدة إن أذكرك هبك حردي سوى كويسو dadkuus wadankiina naqdeeyo askar loogu talagalay ay hareeraha ka xageeyo ilaa magaalada baafeed ay qaadaan mas'uuliyadda amniga guud ay qaadaan maxaa noo jeedaya ma jirto wax dowladda ay nabadeysay tilaabo ay qaadana malaha iskuujiisana malaha ciidanka cusubnadeena jooga malaha ciidamada maanta shaqeynaya waa ciidamadii hore ee midda waa ciidamadii booliska waa ciidamadan waa ciidamo gaar ayaga xirooyin gaara ka imaado oo aan la aqoona yahay ciday ka amar qaataan cidda dariiqa hubkii la aruuriya maanta waxaa lala yahay gacmaha وكل قيم جعمل ممكن صناعة كرنا معها إذا أروح عد ممكن صناعة كرنا معها هدي كنت قري لك شن غبا قري لك معها وما صنت محمد أربعين سؤال ويديو عبد القادر الميديا اللي تاجتها برامجك أتا أبلاد عيبال تحرق ملعن إلو اللي تاجتها الميديا إيه نوسي بيستو إن أي ciidamada oo laga fikiray oo la diyaariyay oo ay tahay balaan oo loo sameeyay aan kala sugno si waxa aan dhahayno iyo ujeedada ay dadku u fahmaan Dr. Cabdulqaadir waa fursad baan ku siinayaa Maxamed Arabana su'aal weydiiyo Maxamed dadka ugu badan ee hadda hubka laga qaaday waa dad la yaqaano oo ciidan dawladeed ah iyo shaqaale dawladeed wali ma hayno al-shabaab tiro badan hub laga qaaday marka haddii askarigii hubkiisii la qaaday oo mas'uuliyiintii hubkii laga qaaday oo caaw markuu shaqada ka baxo gurigiisa loo galo yaa cidda qaadaysa way mas'uuliyadaas askarigaas ma waxa jiro qof daba joogta ma gurigiisa lagu horeeya ma wadadii maraya lagu horeeya soo qalad maahan in qofkii wixii uu isku ilaalin laga qaado amnigiisana aysan cidna mas'uuliyadda dusha saaran walaal Xuseen aad u mahadsan tahay waxaan ognahay reality markaan ka hadlayno waxaan ognahay in ay dawladdu ballan qaaday sida ay booliiska taliyaha booliiska lala hadlay lagu wargeliyay inuu dadka mas'uuliyiinta dawladda uu sugo amaankooda inuu sugo uuna asaguna u diyaarisay ciidamo qaas ah loo xareeyay tababar oo dhawaane ka soo baxayaan nimankaas hubka laga qaadayna lagu la siin doono askarta sharciga oo booliiska oo tababar ka soo baxday hubkoodu tirsan yahay rasaastooda tirsan tahay oo inay banaanka u soo baxaan wax kala aan qofna ku samayn karin marka taas dawladda balaankaas dawladdu way diyaarisay waxyaalaha dhalinaya ka mid tahay wadooyinka maanta askarta yani dawladda maanta ee hubka loo aruurinayo dadka hadda maanta waxaan rabaa Cabdulqaadir in wax yar aan dhammaysto adoo mahadsan waxaan rabaa inaan dhammaysto adoo mahadsan marka tan taas waa midda guud oo dawladdu security balan oo guud ayay ka diyaarisay qorshahaasi in qofkani mas'uulka dawladda ay lagu xirna goobtiisa uu degan yahay ammaanteedana sugo keligiisana maahan si guud loo sugo taasi waa mid balaan guud oo intaan qorshahan hubka qaadista aan la samayn ka hore la diyaarsay waay fiiri hal midaan rabaa inaan kugu daro taliyaha guudka saddexaad hubka laga qaaday ma waxaa lagu dhisayaa ciidanku وأن أبنى تليها شقتك أو صوتك وأن أبنى ماركتي هولها أمني جوال بنادر يكفوا قاعدين شقوين كمان الدولة واحد شيئا دي حرمها يعتبر وأن أبنى الدولة واحد يسوق برجر الدولة هتركها نوع يسوق برجر عالم يعني مالها يسوق برجر ما أنت واحد سهل الدم عيدا كالصومالي اللي قصوا برجر هذا واحد كان عيدا كمان هو كلا جماعة وهو كلا جارو هو كلا جانا سهل ayaga maanta sababu ahaa in maaragtay wadanka oo ciidanka lagu tababaro wadan marka mid aan anigu weydiinayo waxay tahay taliyaha ciidanka saddexaad oo ah ciidanka militariga maanta ninka hubka ka aruuriyay ma kira soo ku dhisa midda labaad su'aasha labaad oo aan ku weydiinayo waxay tahay hubka firi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal su'aal oo ah hubka maanta la aruurinayo oo leedahay ciidan cusub oo lagu maalgelinaya oo lagu siinaya war kuwii hore yaa u maqan askari diiwaansan waa askari diiwaan gashan waa ma fahan askari waxaan rabaa inaan isla fahmno hanaanka tallaabooyinka ee dawladdu federaalka ay diyaarisay
waxaan rabaa inaan isla fahmno hannaanka dowladda federaalka ay u diyaarisay in waddankaani lagu sameeyo hubkiisa system xadidan oo xerooyin leh oo nidaam leh oo xisaaban oo la yaqaano si amniga guud ee dalkii oo ugu sugmo annagu haddii ay naga noqoto isbarbaryaac oo la yidhaahdo hubkii hala fasaxo qof kasta hubka garabkiisa ku sito taasi waxay ka qayb qaadanaysaa rabshad iyo fawda aanan dhammaanaynin sidaa daraaddeed anigu fikirkayga waxaan qabaa in dowladda federaalka lagu taageero in ay hanaankaasi hubka dhigistu ay xoojiso laakiin ay ku diyaariso dadkii balaan oo dadkii doctor cabdiqaadir iyo ustaad maxamed aan sugno aan kala sugno dowladda hubka laga qaado oo loo beelayo al-shabaab dowladda bistoolahooda laga qaado oo loo beelayo al-shabaab garabku ma helaysid midda kalena hubkan waxaa la ogyahay gacmaha oo ku dhici doonaa la ogyahay maamul goboleedyada gaara soo dirsadeen doctor maxamed tababaraayo oo lagu xareynayo number konton la rabaa in loo geeyo dad gaar oo gobolka banaadir deganana laga qaadi rabaa waana gacan marin loo jeedo cad waaye cabdilla raaga tarwiilna hadda kahor wuxuu yidhi dulmi xamar ku jimanayo doctor cabdiqaadir waxaa rabaa inaan su-aal ku weydiiyo hadda waxaa la rabaa in la isu sheego dhibaatada xamar ka jirto ee maanta dagaalada sababaayo oo taliska militariga kula dagaalamayaan ciidanka militariga iyo nabadsugidda isku dagaalayaan ama dadkan hadda uu xil saarayn yani dowladdan cusub ay xil saaratay hub aruursiga xil saaratay waxay sababi doonaan dagaalaad yani ka socon gobolka banaadir iyo hareerihiisa waxaan leenahay dowladda gaar ahaan madaxweynaha waxaan ku wargelinayna u sheegaynaa gobolka banaadir dhibaatada ku siman ha laga joojiyo hubkan la aruurinayo ma ahan hub sax ah ma ahan yani gacmaha ku aruurayo gacmo sax ah midda labaadna isku kalsoonaanna ma gaarin waxyaalaha dhibaatada keeni doona oo waxa sababi doonana waa hadda